waxaan soo dhaweynayaa haddii ilaahay ku idmaayo garyaqaanad raxma axmed kusoo dhawo barnaamijka raxma. السلام عليكم الله مقليا si wanaagsan maasha allah. كل سدا ولكن سمطر وان كا عذر دارنيا ان قريقانimada laakiin halganka ku wada jirnaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام لله والصلاة والسلام على رسول الله horta aad baan idin wada salaamaya halgamaayada iyo bahda Sima TV walaal Samatar wariye daahir iyo professor Ararse waxaan kaloo salaamay insha Allah dib bulshada dhageysanaysa iyo inta dhageysan doontaba marka kulli xalka ma aragtay wacyigelinta ama abaabul sida yani dib loogu guuleysan lahaa hawlahan baan ma aragtay isku dayayna wax ka taafto laakiin inta ka hor waxaan rabay ma aragtay bal arimihii walaalahay ka soo hadleen inaan xoogaa wixii aan yani ku biirsan karo arinta ah horta ma aragtay dhibaatadan soo jiidantay galbeedka city kullayna fidaysa oo ku fidaysa ma aragtay gobolka city intiisii kale kullay sidii dowladda Itoobiya u socotana halkan ma aragtay Soomaaliya dhexdeediiba hadda la soo galay waxa weyn horta nabad in laga keeno dhulkaas oo xal loo helo ma ka go'an tahay dowladda Itoobiya hadday dowladda Itoobiya ka go'an tahay inay yani dhulka nabad ka keento de horta dagaal looma baahnaadeen ciidanana loogama baahnaadeen halka waxa ku filayd inay ma aragtay sharciga ku dabaqdo dowladda Itoobiya markii kowdiiba la isqabsaday maadaama dhulkan uu yahay dhul ku baxay ma aragtay sharci darro dhul ku baxay maadaama uu yahay waxa dowladda Itoobiya ku filayd in ma aragtay heshiiskii meesha laga yani lagu saxeexday oo bariyaha qaar maqli jirnay ina heshiiska la hoos dhigay yani maxay la horgeeyay golaha federationka soo maarta ku dabaqo sidoo ugu dabaqi lahaa sharciga heshiiska oo waafaqsanayn kulli sharciga dastuurka Itoobiya in ma aragtay la buriyo oo la jabiyo baa ku filay waa koow laba waxa ku filayd markay shaqaaqyadu dhulkan ka bilaamayeen in ma aragtay into maxay la nabadeeyo inta xuduudaha u dhulkaas daafti dadka laga qaado waa sidoo dhigay dastuurka Itoobiya dadkan inay Soomaali yihiin iyo inay danaakile yihiin inta lagu kala saaro halkaan xaq u ka dhawaa de dowladda Itoobiya inay san rabin dhulkan nabad inay ka dhacdo taas cadeynayo inta uu fududba umaysan adeegsanin dowladda Itoobiya annaga arkayna ma aragtay inay arrimahaas ayna daacad ka ahayn haddana kullay dadkii yani dadkan matalayay ma aragtay dadkii u joogay ama dowladda ka shaqeeyaan ama ma aragtay ha haadaan dad la soo doorto qaab doorasho ku imid hoggaanada ay joogaan wax wada may saarin ma aragtay dowladda Itoobiya kolka horta daacadnimada dowladda Itoobiya taas baa ma aragtay cadeynaysa inay daacad ka hayn waxa kale oo cadeynaysa halkan la isla soo gaadho intii horeba laga soo gudbay dhibaatada maanta la joogo dhibaatooyin badan oo xuduuda ka dhacay jirta qoomiyado badan isku dhacsan baa jirta qoomiyada Axmaarta kacsan Tigreega la arkay dhibaatadii maxay soo martay siyaasad bay ku dhameysay iyo wada hadallo dowladda Itoobiya ku gashay inaha socoto wali inay haba dhamaatay gobolka city dhibaatadan ka socota ay danaakiladu dagaalka ka dhex wado qaabkaas siyaasadeed inay ma aragtay heshiis de ma aragtay in ay adkaynayso xoojinayso dowladda Itoobiya inay ku dhex gasho de umaysan waayin inay tiraahdo idinkuna culimada isla taga muslim baa tihiin kuwan ana siyaasad maxay ku dhexdhexaadinayo hawshooda dhamaynay de macquul ma islaamnimadu way taalaa laakiin dhulkan sharci baa ka shaqeeyo dowlad baa ka shaqeysa taas halkaas ay beeya waxaan ma aragtay raba arinta ma aragtay dhibaatada Itoobiya ay wado
إن arrimahan maaragtay danaakilada ama cafartu ka dhex wado gobolka city qayb bay ka tahay dowladda Itoobiya sharcigii maaragtay u yaalay dastuurkii Itoobiya u yaalay way ku xadgudubtay waxay kale ku xadgudubtay maaragtay international lawga xeerarka u yaalay iyadoo halkan u gudubtay hadda sidoo walaalkeen soo sheegay maasha Allah professor Araarse iyo samatarba ka dhawaajiyay in hawshan Soomaali oo dhan dibtan ay yani dib fidays oo wada gaadhis ay noqon doonto ay haddada la joogana qarannimadii in maaragtay iyo xuduudihii dhulka Soomaalida inay ku xadgudubtay Itoobiya iyadoo taas ku xadgudbaysa sharciga maaragtay u yaala ama ha ahaado heshiisadii convention de Vienne loo yaqaano ama ha ahaado heshiiska maaragtay xeerka shartiga loo yaqaano UN-ta u yaala article-keega labaad iyadoo ku xadgudbaysa inay heerkaas soo gaadho Itoobiya waxay la soo martay marxalado badan sida walaalkeen samatar soo sheegay marxaladaha ay soo martay soo mareen boqorada ama emperoradii ka soo talin jiray marka laga soo gudbo marxalad qaababkay u gaadhay maanta halka ay socoto dhibaatada Soomaalida ay u geysatay Itoobiya waxay keentay kala daadsanaan bay horta u keentay Soomaalida oo dagaaladii sokeeyay qayb weyn bay ka qaadatay laba maaragtay inay markay kala daadisay haddana isugu adeegsato Soomaalidii baa keentay waxa la yidhi gudunay imaad goyn karteen gobolkayba kugu yaal maanta dabar jabka Soomaalida ku dhacay qayb bay ka tahay Soomaalida waa la isku adeegsaday saddexna waxa maaragtay fududeeyay arrinta matalaad faaruq ah ama maran oo maaragtay dadka Soomaalida ku nool dawlad xagga maxay helaan deegaanka Soomaalida ama xagga dawladda Itoobiya ku dhex nool oo dad matalayaan xildhibaano matalayaan maaragtay in wasiir matalayaan in maaragtay doonaan xitaa uqaalu hadlayso intuba qadiyada faaruq ka yihiin ay magacuyaal yihiin ayna يعني دبرك أودي إن دبعتها دتك وقطعش أنت أبغى أفضل ذي دولة إثيوبيا إن كل دوات إن كسل جاردو أرمي هيجي هاد البلاد سجى يبط إن هش أرمي هيجي ها ما كان حكى كجسوا قد بوح الربع إن دبعتهم ولا جودة جرا مركب أي صومالي وكوا جرت أودجا يويان مركب كاس هراي ووصل دولة إثيوبيا ويجلين أو ودجالة دي سكاية صومالي ده يحل كمان تقولي الصومالي ده كله تاجنته لكن هذا مركب كيني دجيش ديار بوته دولة إثيوبيا يادو دولة إسكال لجانا الساعة بحد ديار بوته إني دجيش أرنت هذا بس ده لوجو هرتجي كرا ما أنا ضعت بدبضات بالقفتا رال هذا دم كده راضي هذا سده وحلا ضبق قبل كرا وحلا ضبق قبل كرا إن أمضى الصومالي دي لها قضية إن أمضى الصومالي دي أي أوجاتو إن ما دركت بدباد وبهينهين حال إن لوجت تجن وبهينهين ما دركت إن تفير صعدة تفير تضوح وجت تجين ما أنت لو بهين كهول قلم كو إن ما دركت رجع مثله مركان كهال حكن إثيوبيا رجع مثله مسؤولية سرعة إن كسب عن مسؤولية دود إن كفكران ما أنت دحالك عرابيان عرورتودا ورابيان عرورتي سير دلان بأو رابيان ما دحالكاس wuxuu noqon doonaa inay gabadha ay dalaan iyo wiilka ay dalaan gabdhaha u dali doono ina ma daragtay in ay u noqdaan adoomo Itoobiyaanka kale inay adoomo u noqdaan ma daxalkaas ay rabaan inay u reebaan ma waxay rabaan ma daragtay in dulkan oo dhan aynan yani taariikhda ku yeelan Soomaalidu miya rabaan mise inay taariikhdii looga tagay iyaga waawiyaashood uga tageen إن وجدت أمدوده ربان وأنا ما أتكلم تشدان ما أنت وجوده كل مسؤوليتي نكسر بحن لنا هاي فاروقا أدله يدرسون فاروق سيدتان نقال ما يسه ومضن إن النار تحقيقي وصور الدين بالاني كربا بلشدة صومالي ده هي بلشدة ما دركتي مركان خاصهان ودا قلبات كست ولي وحبضن باكم مكان أباب الكلاني جبهنا ما أنت هدي أي حكومته يعني هبا يراتي أي دقائق سمايسي waxa inaan la yareystahayn ragga inta ku dhintay halka ee maaragtay ciidanka liyugaha in ama kuwii maaragtay maleeshiyadka meesha doonana ka soo jeedaan Allah u naxariistaan la intii ku dhimatay inta ku dhaawacantana Allah u boogadhay abaal weyn waa niga hayna ragga garab bay niga baahan baan kala bulshada gobolka City ka soo jeeda maantayna inigu dhowdahay guush mas'uuliyadda u weyn bulshadaas idinka idin saarantahay inaad maanta dhulkiina ridataan
iyo inaad ku tala gashaan addoonnimo inaad ku sii noolaataan tafiirtiin in addoonnimaad uga tagtaan maanta inigu dhowda ood iska gaadhaan guumaystuhu kan uu isticmaalaya ee danaakilada ah inaad dhulkiina ka faaruqisaan ood ka safaysaan maanta inigu dhowdahe kacaa niga leenahay garab siiya xukuumadda iyo cid kastoo nigu gargaaraysa inaad hawshan aad ka shal gaadhaan inta kalena waxaan leeyahay Soomaali meel kastay ku nooshahay arrintaas darbi bay inay tahay meeshaas laga soo gudbayo darbigii waa inaad dib u dhistaan oo dib loo adkeeyo inaad gacmaha isqabsataan ayaan ka leeyahay bulshada Soomaaliyeed sida u dhantaa inta city degan iyo inta la hayb wadaagta ee Djibouti haba ku noolaata ama Soomaaliland ha ku noolaatee waa la idin soo wada socdaa markabkood ku wada jirtiin halka indhihiinu ha eegaan hana ogaadaan daadkan inigu soo furmay waa inaad sida ugu dhaqsalaysa ka moostaan gacmaha isqabsataan waan ka baxay